There were mornings when I would wake up and I would think, okay, I'm gonna wake up a second time. This is just a nightmare. And it wasn't. This is one of the most well thought out, well executed plans. Diabolical. Absolutely. bishii Juun 2016 Michelle Hadley oo ahayd gabar 9 jir ayaa gurigeeda ku soo laabatay kadib markii ay saaxiibkeed kula soo kulantay mid ka mid ah maqaayadaha magaalada. balse waxa ay yaab noqotay markii ay soo gaadhay guriga. waxa ku soo dhaweeyay koox booliis oo ku sugnay banaanka gurigeeda, kuwaas oo u sheegay inay ku xirayaan dhibaato ay u geysatay gabar lagu magacaabo Angela Diaz. laakiin Michelle ayaa u sheegtay booliiska inaysan wax fikrada ka haysan cidda ay tahay Angela. xarigan ma wuxuu noqon karaa mid qalad ah mise waxaa jira run qarsoon oo ku saabsan khiyaanooyinka arxandarada iyo xasidnimada ka buuxdo ee aan kiiskan ku ogaan doono. balse intaan bilaabin muuqaalkeena maanta, hadday tahay markii kuugu horreysay soo booqata channelka, fadlan ku soo biir adigoo saaraya subscribe si muuqaal walba aan soo gelin uusan kugu dhaafin. like iyo share-tan nagu dhiirigeli, mahadsanid. tani waa Michelle Hadley. waxay dhalatay December 20, 1986 taasoo ku dhalatay California. waxay ahayd curadka waalidiin ganacsadayaal ahaa, waxaana la dhalatay hal gabar oo 3 sano ka yareed. Michelle waxay ku kortay nolol degan oo qurux badan. waqtigeedii waxbarashada dugsiga iyo jaamacadda, asxaabteeda ayaa u sheegay booliiska inay ahayd gabar degan oo naxariis badan. waxaana jiray qof ay aad iskugu dhawaayeen oo ay mar walba wadaagi jireen wax kasta. balse baaritaanka lagu sameeyay kiiskan ayaanan magaciisa lagu sheegin qofkaas. horaantii 2008 ayay isguursadeen, kuwaasoo waqti badan ku qaatay nolosha, balse 4 sano kadib way isfahmi waayeen, waxayna go'aansadeen inay kala tagaan. 2013 waxay isbarteen nin kale oo lagu magacaabo Ian Diaz, kaasoo 9 sano ka weynaa Michelle. Ian Diaz ayaa ka shaqaynayay shirkad kaasoo maamul ku xigeen ka ahaa, halka Michelle ay iyana u shaqaynaysay shirkad suuqgeynta ka shaqaysa. dayrtii 2014 Michelle iyo saaxiibkeed ayaa u baxay dalxiis si ay waqti macaan ugu soo qaataan dibadda, iyagoo waqtigaas bilaabay inay qorsheeyaan waqtiga arooskooda. ugu dambeynna way isguursadeen. Michelle ayaa saaxiibkeed u aragtay inuu yahay nin aad u faraxsan, naxariis badan, noloshana u qalmay in xaas loo noqdo. balse waqti badan kadib Ian Diaz ayaa u muuqday mid isbedelay oo bilaabay dabeecad qalafsan, sidoo kale aflagaada aysan horey ugu arki jirin ayaa ku soo korortay. tani waxay Michelle ku noqotay naxdin, waxa sababay isbedeladan cusub, taas oo ay u dareentay inuusan ku qanacsanayn nolosheeda. balse Ian ayaa ka codsaday Michelle in shaqada ay ka shaqaynaysay oo ahayd shirkadda suuqgeynta ay ka tagto, taa beddelkeedana ay isaga kala shaqaysa shirkaddii uu ka shaqaynayay. inkastoo ay aad u jecleed shaqada suuqgeynta, haddana way ku ixtiraamtay iyadoo qancinaysa ninkeeda ayay ka ogolaatay, waayo waxay islahayd armuu isbedelaa, sababtoo ah aad ayay u jecleed. Ian Diaz ayaa ka codsaday Michelle inay gurigooda iibsadaan, taasoo mar kale ay ku fikirtay amuu deganaansho ku helaa jacaylkiina. codsigiisana way aqbashay mar kale. tani waxay ahayd qiyaastii 2 sano kadib waqtigii ay isbarteen. 2015 Michelle iyo Ian waxay bilaabeen inay raadiyaan guri, ugu dambeynna waxay iibsadeen guri ku yaala bartamaha magaalada London. guriga waxaa lagu qiyaasay lacag gaaraysa $450,000, taasoo bil kasta ay wada bixinayeen labadooduba. balse alaabta arooska ayuu ka cudur daartay inuusan awoodin, xitaa lacagtii guriga bixinteeda ayuu joojiyay Ian. laakiin Michelle ayaa go'aansatay inay sii wado lacagtaas bixinteeda oo ku dhawaad $144,000 ka dhinayd. intaa kadib Michelle waxay islahayd xiriirkiina ayaa hagaagaya kadib markii ay guri wada iibsadeen, balse wuu ka sii daray, waayo maalin maalmaha ka mid ah gaari ayay wada raaceen labadooduba. isfaham la'aan dhex martay awgood, Ian ayaa gacan u qaaday gacalisadiisa, taasoo dhaawac fudud soo gaaray. laakiin iyadoo ooynaysa waxay wacday walaasheed ka yar oo arrintii oo dhan ay u sheegtay. dhammaadkii xagaagii 2015, 2 bil kadib markii ay iibsadeen guriga, way ka carootay oo way ka tagtay Ian oo keligiisa. iyadana waxay aaday walaasheed, waayo nin u gacan qaadayo way la joogi weysay. inkastoo ay sii bixinaysay lacagtii deynta ee guriga, run ahaantii Ian oo ahaa ninkeeda dhammaan uu uga baxay Michelle ballamihii ay wada galeen, taasoo ay ka mid ahayd lacagtii guriga ay isla bixinayeen. iyada bas ayaana bixinaysay, taasoo Michelle ka sii caraysiisay. Michelle ayaa aad u nacday, sababtayna in shaqada xitaa ay ka tagtay, waayo isku meel ayay ka shaqaynayeen. balse waxay ku wargelisay inuu bixiyo lacagta, hase ahaatee iimayladeeda iyo fariimaheeda dhammaan uu iska indha tiray. midda ka sii daran oo ay aad uga carootay ayaa ahayd maadaama ay ku tiri bixi lacagihii deynta inta ka dhineed. maxkamadda ayuu warqad u qoray, taasoo ah inuu isaga oo keliya uu leeyahay guriga, lagana xanimo Michelle lahaanshaha guriga. balse maxkamadda ayaa diiday midaas, oo guriga waxaa ku wada saxiixan labadoodaba. ugu dambeyn maxkamadda ayaa soo jeedisay in la kireeyo guriga oo labadooduba ka wada qaataan kirada. sidoo kale maxkamadda ayaa soo saartay amar ah in Ian uu bixiyo lacagta ka hartay deynta guriga. haddii uu midaas sameyn waayana laga qaaday ganaax dheeri ah. inkastoo uu diidanaa midaas, haddana ma haysto doorasho kale, waayo
waa amar maxkamadeed. Arrinta maxkamadda ayaana socotay hal sano. Ugu dambeyn 2016 labadooda ayaa ku kala tagay wanaag. Michelle ayaa xor ka noqotay xiriirkii Ian ee sunta ahaa, waxaana u furmay bog cusub oo nolosheeda ah. Halka Ian oo weli ku noolaa culayskii bixinta deynta ee guriga ka dhineed. balse wuxuu bartay gabar kale oo lagu magacaabo Angela Diaz. Angela waxay dhalatay 1985 waxayna ka qalin jebisay jaamacadda gobolka Arizona 2006. Angela iyo Ian ayaa wada kulmay horaantii 2016 isla bil gudaheed xiriirkooda ayaa sii kordhay, gurigiisa ayayna la soo degtay. May 2016 Angela ayaa xaqiijisay inay uur laba mataana u leedahay Ian Diaz. Ian ayaa aad ugu farxay arrintaas, balse wax walba waxay u muuqdeen inay degdeg ku dhacayeen ilaa uu soo dhacay email aan la garanayn kaasoo abuuray walwal badan. Angela waxay heshay email hanjabaad ah oo lagu yiri ma tihid qofka saxda ah ee ku habboon Ian. Fariintan ayaa Angela ka yaabisay, laakiin inta aysan guursan waxay xiriir la lahayd nin lagu magacaabo Jason kaasoo xiriirkooda soo gabagaboobay ka hor Ian, balse isaga inuu yahay in kale ay ku fikirtay. Laakiin Ian mar uu uga sheekaynayay gurigan ay wada degan yihiin labadooda inay la leedahay xaaskiisii hore Michelle, waxay ku fikirtay in qofka soo diraya messageskan laga yaabo inay tahay Michelle. Isla markiiba Angela waxay heshay emails fara badan oo ka kala yimid 6 account oo kala duwan, dhammaantoodna waxay soo wada direen hal fariin oo isku mid ah. balse Marsayr awgiis waxay isku programmisay inay soo dirtay Michelle iyadoon caddayn u haynin. Emailadii oo ku sii batay awgeed, Angela booliiska ay dacwad u gudbisay, taasoo ahayd inay cabsi xooggan iyo walaac ku abuurtay Michelle oo ah xaaskii hore Ian. Sidoo kale saraakiisha booliiska ay u sheegtay inay ka baqayso inay ka baxdo gurigeeda, sababtuna ay tahay hanjabaadii ay Michelle ugu soo dirtay emailka. Sidoo kale waxay raacisay inay ka cabsatay in la soo weeraro oo la dilo haddii ay ka soo baxdo gurigeeda. Kadib maxkamadda markay aragtay culayska kiiska, waxay bixisay amar ah in la soo xiro Michelle. Waxay ahayd bishii June 2016 Michelle waxay u baxday inay la soo kulanto saaxiib ay lahayd waqtigaas. Kadib guriga ayay ku soo laabatay, balse waxay la kulantay koox booliis kuwaas oo guriga banaankiisa ku sugayay. Saraakiisha dambaarista ayaa wareysi la yeeshay Michelle, taasoo la weydiiyay inay garanayso Angela. sidoo kalena taxanaha hanjabaadda emailka waxay ku jawaabtay inaysan weligeed maqlin Angela xitaa aysan waxba kala socon fariimaha emailka ay sheegayaan saraakiisha booliiska, balse waxaa loo sheegay Angela inuu qabo ninkeedii hore Ian, dhammaanna eedeymahaas way diiday. Saraakiisha booliiska ayaa sheegay in Michelle been sheegayso oo hadalkeeda maysan rumaysan, balse cadeymo intaas ka dheeriya markii loo waayay Michelle waa laga sii daayay xabsiga, balse waxaa xanibaad laga saaray gurigaas iyo agagaarka ninkeedii hore Ian. hase ahaatee waxa naxdinta leh ayaa ah in fariimihii ay meeshoodii ka sii socdeen, weliba markan waxaa dheeri ah in guriga iyo alaabta meeshay taala loo sheegayo Angela iyadoo loo hanjabayo. xitaa waxaa loo sheegay alaabaha qaaska ah meesha ka yaalaan guriga, balse waxay dareemaysay inay waxaan oo dhan samaynayso Michelle. ugu dambeynna Ian oo guriga ka maqan habeenada ka mid ah waxaa la soo weeraray Angela, waxaana dhaawac laga gaarsiiyay qoorta iyo garbaha. ugu dambeynna waxay wacday booliiska oo ay u sheegtay in la soo weeraray. isla markiiba booliiska ayaa yimid guriga. su-aasha la weydiiyay ayaa ahayd ma taqaana qofka ku soo weeraray, iyadana ay ku jawaabtay haa waa Michelle, inkastoo aysan arkin waxa soo weeraray. mar kale booliiska ayaa soo xiray Michelle iyagoo yiri kuma filna amarka xayiraadda. Michelle familkeeda ayaa ahaa qoys iska ladan kuwaasoo qareeno badan u qabtay gabadhooda. ugu dambeynna waxay ku guuleysteen inay damaanad ku sii daayaan iyagoo bixinaya lacag $10,000 ah. laakiin fariimihii ayaa halkii ka sii socday mar kale. markan arrintu way ka sii adag tahay oo waxaa dhacay weerar aad u fool xun, xitaa in la kufsada la isku dayay Angela. sawirro qaawan ayaa laga qaaday waxaana lagu faafiyay aaladaha social media, balse booliiska ayay la wadaagtay inkastoo akawnka laga soo dirayay uu ahaa magaca Michelle. maalinkii xigay 14 Luulyo booliiska ayaa mar kale xiray Michelle, balse markan booliiska way diideen damaanadda. Michelle ayaa si adag u beenisay emailada iyo sawirradaba. waalidiinta Michelle ayaa qabsaday qareen sababtoo ah waxay dareemeen inuu jiro qof ciyaaraya ciyaar taasoo aynan si fudud ku soo afjarmaynin. 3 bil ayay ku jirtaa Michelle xabsiga, qoyskeedana waxay isku dayayaan inay ogaadaan ciyaartan cidda ciyaarayso, balse qoyska Michelle ayaa markan helay caddeyn muhiim ah. bishii June Michelle ayaa la dhigay cusbitaal iyadoo xanuun badan dareemaysay. isla maalinkaas ayaana emailkii ugu horreeyay loo diray Angela. sidoo kale aabaha dhalay Michelle ayaa soo iibsaday software lagu ogaanayo IP addresska halka laga soo dirayo emailiska iyo ciwaanada qarsoodida ah. 30 September 2016 wax walba way isbedeleen kadib Ian oo ahaa ninkii hore ee Michelle ayaa tagay maxkamadda, kaasoo damaanadda Michelle ka codsaday booliiska, wuxuuna ku guuleystay inuu soo daayo. waxaa cajiib noqotay in IP addresska fariimaha laga dirayay inuu ahaa guriga ay degan yihiin Ian iyo Angela, taasoo su'aalo badan abuurtay. ugu dambeyn waxaa la ogaaday qofka fariimaha dirayay inuu ku sugan yahay gurigooda, oo baaritaan badan markii lagu sameeyay waxaa la ogaaday cidda emailiska diraysay inay ahayd Angela. baaritaano uu sameeyay booliiska ayaa lagu ogaaday in wax walba ay bilowdeen maalinkii ay isbarteen Angela iyo Ian, kaasoo uga sheekeeyay
in guriga ay degan yihiin ay wada leeyihiin isaga iyo xaaskiisii hore Michelle. Angel iyo ninkeeda ayaa ku heshiiyey in Michelle nolosheeda la baabi'iyo, la nacsiyo nolosha ugu dambeynna guriga ay kala wareegaan. Qorshaha email-ladan waxaa lahaa Angel, iyadoo rabtay in maalin kasta aysan ka dhamaanin Michelle xabsiga. Midda ka sii daranna ay tahay in la ogaaday Angel inay sii qiyaantay Ian, kaasoo labaduba ay ku heshiiyeen inay gabadhan dhibaateeyaan. Uurka mataanaha oo ay uga been sheegtay laftiisa, kumbiyuutarka la saaray ayaa lagu ogaaday inay siisan ninka saaray lacag gaaraysa $750 si uu ninku ugu sameeyo warqad caddaynaysa inay leedahay uur laba mataana ah. Sidoo kale waxay abuurtay khiyaali ah niman inay ballamisay ay ka qaadeen sawirro iyadoo la kufsanayo si social media loo dhigo, kadibna bulshada u fahansiiso in Michelle nimankaas ay soo adeegsatay. Hasbunallah, intaas ma waxay u mareen lacag mise maseer. balse isfaham la'aanta ka dhaxaysa Ian iyo Angel ayaa sababtay in ninkeeda uu qirtay wax kasta ay sameeyeen labadooda. Ugu dambeyn wax kasta ayaa banaanka yimid. Booliiska ayaana helay warqad amar ah oo ay ku baarayaan dhammaan aaladihii ay isticmaalaysay Angel, waxayna heleen qalabkii taasoo caddaynaysa inay run tahay dhammaan waxyaabihii uu u sheegay booliiska Ian. Dambibaarayaasha ayaa dib u baaray Angel halka ay ka soo jeedo iyo cidda ay tahay. Waxay ogaadeen ayaaba cajiib ah. Run ahaantii ma ahayn markii ugu horreysay oo waxaan oo kale ay samayso Angel. 2013 Angel ayaa geysatay dembiyo markii ay shukaansanaysay ninkii hore ee lagu magacaabayay Jason oo ka tirsanaa ciidamada California. Intii ay wada socdeen waxay u sheegtay inay tahay qareen oo laga helay kansarka ilmagaleenka, taasoo markii dambe uu ogaaday inay ka been sheegayso shaqadeeda iyo nafteeda oo aysan qabin cudurkaas. January 6, 2019, 3 sano kadib markii baaritaanku dhamaaday, Angel waxaa loo xiray dembiyadeeda foosha xun. xafiiska xeerlaaninta ayaa ka nadiifiyay faylkii booliiska magaca Michelle. Ugu dambeynna way ku faraxday midaas iyadoo tiri wax walba way soo dhamaadeen. ugu dambeyn Angel ayaa qiratay 10 dambi ay gashay, waxaana lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah. sidoo kale Michelle ayaa qalbigeeda ka go'in xukunkii qaldanaa ee xabsiga loogu taxaabay, oo waxay ku weysay masterkii ay baranaysay ee MBA-da, sidoo kale shaqadeedii xitaa sumcadeedii. markii laga baryeelay dhammaan eedeymihii Michelle, dib ayay u soo kabatay oo cagaheeda ayay dib ugu istaagtay. sidoo kale waxay dib u heshay sumcadeedii MBA-da iyo xitaa shaqadeedii suuqgeynta, waxayna u guurtay New York si ay ula noolaato walaasheed. Ian isagana waxaa laga wareejiyay gurigii. sidoo kale waxaa lagu soo oogay dambiyo ay ka mid yihiin inuu qorsheeyay shirqoolkii waalida ahaa ee lagu doonayay in lagu waxyeeleeyo Michelle, waxaana lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah. daawada adigana sidee u aragtaa kiiskan? fikirkaaga nagula wadaag qaybta hoose. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. So I think as far as my close circle, it's not going to be hard to rebuild my reputation. And I'm hoping that kind of, it just grows from there.